الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما دائمين متلازمين على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى. وحاعاوة إلهي فضلقي سبحانه وتعالى walaalahayga asxaabtayda akhyaarta aanu halkan ka wada xidhiidhno ugu bushaaraynayaa bushaaro aada u cajab badan, aada u qiimo badan, oo qof kasta oo muslima laga rabo inuu walaalkiisa kale ugu bushaareeyo. bushaaradan oo ka sugnaatay rasuulkeena muxameda sala allahu calayhi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalim. bushaaradan aynu kaga badbaadayno shayaadiinta noocay doonaanba ha noqdaan, kuwa insiga ah iyo kuwa jinka ah, intaba waynu kaga badbaadaynaa. bushaaradan oo haddii si qalbiya aynu ula nimaadno aynu cisada adduunka iyo ta aakhiraba ku gaadhayno. waxaa bushaaradan aan ka wadnaa rasuulkeena moxamed calayhi salaatu wasalaam. walaalaha kale gaadhsiiya oo istusa, wanaagga waa la istusaa, waa la isugu yeedhaa. aynu noqonno sida dadka sharwadeenkuba ama sharwadeenaduba ay isugu habar wacdaan, oo meeshan aad arkaysaan ee facebooka ah ay xumaanta uga faafinayaan. dadka ahlu khayrka ah cajzi baa iyaga laftooda ku dhacay. run ahaantii wixii khayra iyo wanaaga waxaa badanaa iska dhacda inaan markaa loo jajabnayn faafintiisa iyo dadka muslimiinta kala gaadhsiintooda. waxaan uga dallayna ikhwaani fillaah dad fara badan oo muslimiin oo walaalaheena oo nin walba meel uu ka cabanayo inay gaadho bushaaradani insha allahu tacaala. waxaanan hubaa qofka niyada bushaaradan markaa ula yimaada inuu guulaysanaya insha allahu tacaala. bushaaradan waxaa warinaya anas ibnu malik radia allahu canhu waardaah. suubanaha ayuu ka warinaya sala allahu calayhi waaalih wasalam. aad bay u fududdahay, aad iyo aad bay u fududdahay, laakiin cidda ilaahay subxaanahu wa tacaala khayr la doono ayuu waafajinaya insha allahu tacaala. wax culus maba ahaba. markaad gurigaaga ka baxayso ee aad shaqo tegayso unbaad leedahay basba. haddii aad la timaado intaa lagaa helo 3 arrimood baad helaysaa. 3 arrimood baad helaysaa oo rasuulku inoo sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh. mar kale aan ku celinayaa khayrka dadka aan gaadhsiino, walaalaha kale aynu u sheergarayno oo aynu gaadhsiino insha allahu tacaala. waxyaabaha cajabta badan waxaa ka mid ah iminka dadka xumaanta iyo sharka iyo ku dhex faafiya halkan kama xishoodaan inay dadka ku yidhaahdaan gaadhsiiya oo markaa sheergaraya ku yidhaahdaan. marka laakiin khayr iyo la faafinayo waxoogaaba waxaa markaasi kusoo galaysa inaad kelmadan sheergareeyaba aad ka yar xishoonayso, moogtahay si waxaad muxuu ahaa aad gaf ku jirto. laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan weydiisanaynaa inuu qalbigeennuna nadiifiyo, camalkeennana ikhlaas uu ka dhigo. ilaahay uun baynu kaga raadinaynaa raalli ahaansho. bishaaradu waxay tahay rasuulkeena moxamed calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu yidhi idaa kharaja almuslimu min beytihi, qofku marka uu gurigiisa ka baxo, qofka muslimkii markuu gurigiisa ka baxo, rag iyo dumar noocuu doono ha noqdo, oo uu yidhaahdo bismi illaahi tawakaltu cala allah walaa xawla walaa quwata ila billaah. kalimaadka balaagda say u fudud yihiin waan macnaynaya insha allahu tacaala. idaa kharaja almuslimu, nacam, allahu akbar. ilaahay inoo hagaajiyo subxaanahu wa tacaala. wuxuu rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam idaa kharaja arajulu min beytihi, ninkuu markuu gurigiisa ka baxo ama gabadhu ay gurigeega ka baxdo, qofkii uu shaqo tegaya ama waxbarashuu tegaya ama reerkiisu usoo shaqaysanaya ama caafimaad buu ku kallahaya, haddii uu gurigiisa ka baxuu yidhaahdo bismi illaahi tawakaltu cala allaahi laa xawla walaa quwata ila billahu, saddexdaa kelmadood saddexdaa uu yidhaahdo, yuqaalu lahu xiina idin, markaa waxaa lagu yidhaahdaa laqad hudiita wa kufiita
wa wuqiita saddexdaa arrimood baa la siinaya. waxaa lagu odhanayaa waa lagu hanuuniyey, waa lagu kaafiyey, waa lagu ilaaliyey. allahu akbar. aan ku celiyo mar kale. idaa kharaja arajulu min beytihi qofku marka uu ka baxo gurigiisa oo faqaala uu yidhaahdo bismi illaahi tawakaltu cala allah, bismi illaah, magaca ilaahay kaalmaysiga aan kaalmaysanayo ayaan ku baxayaa. tawakaltu cala allah, ilaahayna waan tala saaranayaa. laa xawla walaa quwata, laa xawla xeeladna malihi, walaa quwata xoogna malihi aan shayaadiinta isaga difaaco kuwa insiga iyo jinkaba ilaa billaah, ilaahay mooyaane subxaanahu wa tacaala. intaa markuu yidhaahdo yuqaalu lahu xiinaidin, markaa waxaa lagu yidhaahdaa laqad hudiita, war waa lagu hanuuniye nin yahow, wa kufiita waa lagugu filaaday, alaysa allahu bikaafin cabdah, bala ilaahay maanu addoonkiisa mid ku filan ahayn, wallaahi uu ku filan yahay. laqad kufiita, laqad hudiita waa lagu hanuuniyey, wa kufiita waa lagu kaafiyey, wa wuqiita waa lagu dhowray. wuqiita min shari shayaaiin اlinsi waاljin, waxaa lagaa dhowray shayaaiinta insiga iyo jinkaba waa lagaa dhowray. asxaabta dhammaantood akhyaarta ha isgaadhsiiyaan. kolley waad garanaysaane waynu isxasuusinaynaa uun, ducadan waynu wada garanaynaa, laakiin waxaa inagu adag inaynu aroortii markaynu baxayna aynu nidhaahno walaalayaal aynu ka caado yeelanno, aynu nidhaahno nafteenna aynu barno wax kasta oo ina dhibaya oo insiiyo jinba leh arki mayna insha allahu tacaala. sixir baanad arkayn haddii ilaahay idhaahdo, balaayo il baanad arkayn haddii ilaahay idhaahdo. waxaasoo dhan buu ilaahay kaa kaafinaya subxaana wa tacaala, oo uu kaa dhowraya, uu kaa ilaalinaya. xadiidka maxaa ku sii jira? rasuulku wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam, tanaxaa canhu shayطaan, shayطaanka ayaa ka fogaanaya. haddee gurigaagii baad ka baxday, ma garanaysaa? gurigaagii baad ka baxday, waad shaqo tegaysay, waxbarashaad doonanaysay, caafimaad baad tegaysay. mar alla markaad tiri bismi illaahi, ilaahay magaciisaan ku baxaya, tawakaltu cala allah, ilaahayna waan tala saartay, ilaaha koonka iska leh waan tala saartay, isagaan howlahaygoo dhan u dhiibtay. ictamadtu cala allahi jala jalaalu, ilaahay baan tala saartay jala jalaalu, ilaahay baan cuskanaya. bismi illaahi tawakaltu cala allah, laa xawla xeelad malihi aan wax isaga ilaaliyo, walaa quwata awoodna malihi ilaa bilah, ilahi mooyane subxana wa tacala. markuu qofku sidaa yidhaahdo yuqaalu lahu xiinaidin, markaa waxaa lagu odhanayaa laqad hudiita, waa lagu hanuuniyey, wa kufiita waa lagu kaafiyey, wa wuqiita waa lagu dhowray. sidaa isayaa lagu odhanayaa. markaasaa tanaxaa canhu shayطaanu, shayطaankuna uu ka fogaanaya. markaasaa shayطaan kale ayaa wuxuu ku odhanayaa, shayطaan kale ay isla kulmayaano, markaasuu ku odhanayaa, war sideed u lumin kartaa nin la hanuuniyey oo la kaafiyey oo la ilaaliyey? sideed u lumin kartaaba? maadaa lumimi kara? dayrkii ilaahay buu kaasi galayba. allahu akbar. kaasi ilaahay buu isku dhiibay jala jalaaluh. qofka ilaahay isku dhiiba ee ilaahay tala saarta fahuwa xasbuh, ilaahay baa ku filan. qaala tacaala waman yatawakal cala allahi fahuwa xasbuh. qofka ilaahay tala saarta ee taladiisa ilaahay u dhiibta, ilaahay baa ku filan. fahuwa kaafiih, allahu yakfiihi jala jalaaluh. ilaahay baa ku filan oo kaafinaya. intaa akhyaarta iyo walaalaha muslimiinta meel kastay joogaanba gaadhsiiya. allah idin barakeeyo dhammaantiin, allah idin janneeyo. ilahay waxaan weydiisanaynaa fii hadihi الsaaca wa fii hadihi الleyla أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يدخلنا الجنة في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.